Isaias Afwerki madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Asmara madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo oo boqoshadii ugu horeysay oo 3 maalin ay uga bilaabanayso waddanka Eritrea. cutubyo ka tirsan ciidanka waddankan oo tumaya astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu salaan sharaf ka qaatay madaxweyne Farmaajo. boqoshada madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn looga dareemayay magaalada Asmara iyadoo wadada isku xirta madaxtooyada iyo garoonka caalamiga magaalada Asmara ay soo buux dhaafiyeen dadweyne aad u fara badan kuwaas oo luxaya calaamada labada dal. qaarkood ayaa ku qaylinayay soo dhawow madaxweyne Farmaajo. sidoo kale wadooyinka ayaa waxa ka muuqatay hal ku dhigyo muujinaya saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Eritrea ha jirto. sidoo kale dadka ayaa aad wajiyada looga dareemayay inay aad ugu faraxsan yihiin cilaaqaadka iyo xiriirka dhexmaraya labadan dawladood. labada madaxweyne ayaa halkan oo xaruntii madaxtooyada waddanka Eritrea ay ku yeeshaan kulan rasmi ah kaas ay uga hadlayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dawladood. labada madaxweyne way fariistaan waxay ka wada hadleen qadiyadaha Soomaaliya iyo Eritrea khuseeya. qadiyadahaas waxaa lafdhabar u ahaa in la soo hadal qaado xiriirka labada shacbi ka dhaxay. labada shacbi xiriirka ka dhaxay waxa uu ahaa mid isdhexqaada iskaashi ah degaan wadaag ah halgan wadaag ah. waxaa laga hadlay way aragnimadii labada dal ay lahaayeen ee xagga xilliga isticmaalka iskaashiga ka dambeeyay kaalintii ay lahaayeen Soomaaliya ku lahayd dalka gobonimadiisa iyo kaalintii Eritrea xilliyadii adkaa ee Soomaaliya soo maray. wada hadaladii wali waa ay sii dhiman yihiin laakiin waxaa aad iyo aad loogu nuxnuxsaday ilaalinta karaamada shacabka labada shacbi labada dawladood in la ilaaliyo karaamadooda in mawaaqifta taariikhiga ah ee geesinimada ah ee labada dal ay ka qaataan qadiyadaha dawliga iyo heer gobolba la xoojiyo. marka laga hadlo xiriirka caalamiga ah dawladda federaalka ee Soomaaliya sanad iyo barkii tagay waxa ay ku sameysay isbedel weyn taasoo u horseeday in Soomaaliya ay kaalin firfircoon hadda ka ciyaarayso arrimaha gobolka iyo guud ahaanba kuwa caalamka. Ali Baashi Cabdullaahi magaalada Asmara waddanka Eritrea.